اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي تضباد دروستين بشهر رمضان أن وتلقى بإذن الله تبارك وتعالى waxaan nidhi tawaasulka baraha bulshada iyo xiriirka ha la yareeyo. Haddaba waxaa jira xiriir kale oo la raba in la badiyo, waa xiriirka Allah subxaanahu wa tacaala lala yeelanayo. Waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah baa la ducada, in la ducaysto oo qofku Ilaahay gacmaha uu u taagto bisha Ramadaan oo madaalibtaada iyo xaajadaada iyo dantaada alla loo sheegto. Istighfaarta la badiyo, ducooyinka kuwa jawaamicul kelimka la yidhaahdo macaanida kooban leh macnahoodu weyn yahayna la doorto. Carabkaagu uu ka qoyanaado dikriga Ilaahay mar walba iyo istighfaarta. Ka faa'iideyso xilliyada ducada iftaarka marka la afuro ducadu waa mustajaabo. Qabla intaan la afurin weli ama marka la afuro kadib ama dhexdiisaba waa la yiri intoo dhan. Habeenka iyo marka salaadaha la tukanayo, maalintii iyo gelinka hore iyo gelinka dambe, xilliga suxuurta. Sheekh Ibn al-Qayyim rahimahullah baa wuxuu yiri camal walba waxa ugu fiican kan dikriga Ilaahay la badiyay. Marka fa afdalu dadka suwaamta ee sooman kuwa ugu fadli badani waa kuwa aktharuhum dhikran lillah, kuwa Ilaahay u xusad badan. Kadalika saasoo kale xajka kuwa Ilaahay u xusad badan baa u fiicnaanaya. Dayib, haddaba waxaa la rabaa in soonkaagu uu noqdo Ilaahay darti subxaanahu wa tacaala ikhlaas, waana ruuxda waxaa la daacaadka iyo midhaha meesha ugu muhiimsan weeye. Miftaaxa iyo furaha acmaasha in la aqbalana waa ikhlaaskaasay ku xidhan tahay iyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala, waana sabab bay u tahay Ilaahay macuunadiisa iyo towfiiqdiisa inuu qofka niyadiisa uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala sidqigu uu ku jiro ee runtu ay ku jirto uu ka abaalmariyo. Walidaalika buu Sheekh Ibn al-Qayyim mar labaad wuxuu lahaa qof walba niyadiisa qadarkeeda iyo himadiisa iyo ujeedadiisa iyo raqbadiisa shayga intuu jecel yahay baa la waafajiyaa. Marka ogow afkuun inaad wax ka tidhaahday wax fiican ma ah, laakiin afka waxaad ka dhahayso inaad dhab kaa tahay, juhdigeedina aad gelisaa la rabaa. Sidaasoo kale bisha Ramadaan barakay leedahay oo la helaa. Miftaaxa barakada mashaacirtan iimaaniga iyo ummadan muslimiinta wada sooman iyo dadkan aad aragtay waa waxyaabaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala barakada. Marka baraka qawiyul iimaankaagii baa xoog yeelan, qalbigaagii baa noolaanaya, fikirkaagii baa wanaagsanaanaya, baraka jasadkaaga iyo jirkaagii baad ku arkaysaa. Oo adigoon cunto iyo cabitaan midna maalintii cunaynin baad arkaysaa qofkii oo xoog lahoo shaqaysanayo, ordayo oo wax walba qabsanaya. Waxaad arkaysaa adigoo salaadahaagii usoo kacayo oo kuwii waajibkaa tukanayo sunno wixii Ilaahay ku waafajiyo aad ku darayso gaajadii oonku ayna kaa reebayn. Marka waa barako Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gelinaya. Suxuurta sidaasoo kale dadka qaar baa yidhahdaan maba suxuurtay iyo saasoo kale. Waxaa suxuurta waa arrin sunno ah wey. Marka haba yaraato ma ahun macno weyn inaad cunto weyn cunto, laakiin muhiimadda waxaa weeye suxuur ma usoo kacdaa, wixii Ilaahay ku siiyo haba yaraadee. Ilaahu maad ama caano yar cabtid ama hal timir maad cuntid ama biyo maad cabtid, yani qofku inuu isagoo niyeysan suxuur ahaan usoo kacay barakay leedahay. Dadka yaryar naftooda in ilmaha yararkaa lagu tababaro oo kuwii awoodi kara iyagana si ay u tacawudaan oo ula bartaan intii ay soomi karaan iyo maalinta gelinkeeda iyo intay awoodaan lagu sii tababaro. Qofku uu yeesho khida iyo uu diyaarsado balayn uu maaragtay bisha Ramadaan uga faa'iideysto. Waxaana la yidhahdaa waxa ugu weyn iyo hadafka guud waxa weeyaan ziyaadatu tawajuh ila Allah subxaanahu wa tacaala, inuu qofku Ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga dhan u jeedsado iyo taqwada Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka faa'iideysto iyo cabsida Ilaahay uu kaalmaysto. Maxaa jira qur'aanka markii la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum waxaa lacalakum tattaquun. Hadafka ugu weyni waa cabsida Ilaahay in laga helo Ramadaanka iyo in Ilaahay subxaanahu wa tacaala tawajuh qofku Allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa uu sii jeedsado ayaa loo baahan yahay. Sidaas oo kale yaa bisha Ramadaan waxaa la rabaa qofku inuu ka faa'iideysto waqtigiisa sida ugu fiicanna biidni illaahi tabaaraka tacaala uga faa'iideysto. Niyadana waxaa la yidhaahdaa hal mar laba shay ma wada kulmin karaysid. Waxaa la rabaa niyadu waa un hal meel weeyaan. Sidaas oo kale tusaale adigoo qur'aanka aqrinaya ha isku dayin haddana inaad teleefonkaagii ku ciyaarto ood Facebook dhex gasho ood wax fiirfiiriso ood WhatsAppkii aad maanta dhan rogayso adoo quraan aqrinaya. Marka waxaa la rabaa in tarkiis
ay kuu noqotood hal meel aada rakisto oo niyadaadu ay noqoto biidni illaahi tabaaraka watacaala. marka qeybtaasi waxay ahayd soo dhoweyntii bisha ramadaan iyo nasaaixdii iyo dardaarankii arrimay dadku inay uga faa'iidaystaan. waxaan geli doonaa insha allahu tacaala qeybta axkaamta ah oo bisha ramadaan iyadana loo baahan yahay dad badan ay rajeynayaan axkaamtii inay wax ka ogaadaan. iyadana insha allahu taala wajazaakum allahu khayr وبارك الله فيكم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.